nin la yiraahdo Auguste Comte hadada Auguste Comte badada waa ninka gaaladu yiraahdeen waa filosofkii cilmiga bulshada filosof al-ijtimaa' al-bashari annaku waa iska diidanaa taas cilmiga ma ku diidanaa iska diidana ma afsaali ma xaas laakiin annaku scientific ma cilmiga ma ku diidanaa waxa leenahay aabaha cilmiga binaadamku waa ibn khaldun way ibn khaldun buu intuu ka soo xaday buu sheegi waayo Auguste Comte ma sheegin ana alifin buu cilmiga laakiin markii cilmiga la bartay waxa la yiraahdaa waa arday soo akhriyay kitaabkii muqaddimada ibn khaldun Auguste Comte laakiin wuxuu sameeyay uu regal beeday علمي ابن خلدون اسلام بوها علمي ابن خلدون محوها علمي اسلام بوها او قران كسلكو هيا لكن علمي او جاسكو محو كسلكو هيا مادي او جاسكو marka muxuu yiri bini aadanku maxaan rabnaa anku su'aal maxaan ka jawaabay waxa oranay bini aadanku wuxuu la waabaristay risaalada ilaahay laakiin oo jaaskoo wuxuu yiri bini aadanku wuxuu la waabaristay isagoo isgaranayn oo jaahila saddeed iskooda ku soo dhigay oo isdoondoonaya oo qaawan oo cararaya oo xayawaan u eeg oo timo bulbul leh oo mar eriyanaya maartay deerada mar libaax isgalayaan meel u socdo garanayn dulmaatun bacdaha fawqa bacd ku nool markaabuu dabka helay dabkii isagoo nasiib dhagax ku dhafan buu waa yiri dabkii uu helay oo soo socday wuxuu gartay wuxuu ka soo guuray marxaladu maartay xayawaanimadii ugaadhi buu galay marxaladu ugaadhu ka baxay wuxuu galay beerihii marxaladii waxa xooluhu raacay jiray uu ka baxay beerihii uu ka soo baxay warshadihii uu ka soo baxay aqada administration iyo kookiiba gacanta ku dhigay kadib hadalka ayaa nigii ma taqaana oo just count bari dhammaan wala isku rumaysay soo wala iska dheeraysaa kun qof aan soo dhigano iskool soo dhigano waxa loo soo akhrin ما جرو تاريخ الإنسانية بنظرتها المادية رضا تاريخ الإنسانية بنظرتها المادية رضا لكن وحجر تاريخ الإنسانية بنظرتها الروحية واتين ويان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا وعلم هذا الغبري سمدا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها ولا كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا واسجد إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قضية خطيرة جدا وهي أنكم أسكت ظلم رناهم وكفر إيمان ومادة يروح وحساستا وعقل حقيقية هي عقل ظني ظني ومحي من لو صاب على صامري من لو إلى هنا وحولي إن يظنون بولي ويبقى ملايين يعنبا أنكم ما هم الله أنكم أوكي ماشي ما حكوا جير ما كم حارني أو جاست كونت وحولي بني آدم كو هاي واحد صوب بالعبين واحد قرش العان الله بو هذا نزقة وخطيرة مرحلة دي كود حمي جرانيل مرحلة دي كود ما كان حق جرانوين ما حكوا دعي وحولي ماشي واحد كدعي هلا إنسان كو يبدأ صباح هلا هي الضنبيو هي علامة واركي وارجع كحيب waxaan wuxuu ka dhigay gariir buu dhulkiiba gariiray oo naxay buu dhulkiiba ka cabsooday marna sabadii buu ka cabsooday duufaana ay biday buu dabeelihii buu ka cabsooday wuxuu bilaabay marka an yacbud hadhihi al-umur arimaha uu arkay ee tabiicada yuu caabudidii marxaladii koowaad waxa ma aaminsaneen marxaladii labaadna cibaadatu al-ashyaa buu galay wixii ka cabsiyay buu ilaahay u qaatay war dhulkan uu gariiraya millo fokayada iska caabud طبيعها العابد العاد العابد وحن عابد مركب محوري مرحلة العبادة متأخرة عن مرحلة الخرافة إنسان قبل خرافي بها حمام مسلين مثلا حمام مسلين حبوا عابدي مركوب بصلادي إنسان كوب بصلادي وقرت واحد كان عينيهين إيه النبي يدي ويما ديبولي النبي يدي ركاسكم حكوا عنها دتك كلك عقل بدن دتك كلك علم بدن ويقنعيين waxay ku dhaadeen waxaan caabudine ilaah waxaan abuuraa jiray caabuda bay keenay marka ilaahay yaa sameeyay soo yiri nabiyada sameeyay oo jees kont saas oo fakaraya marxaladii sadlabaad marxaladii dadku wuxuu bixiyay marxaladu aqli markuu binaadamku bislaaday muxuu gartay hatta nabiyadu inay hay'ad yar aqli badan oo iska dhaafay aqligii waa minaadid logic iyo maskaxdii cilmiga sayniski
dhulku gariiraya oo gartay wuxuu gariiraya falka ba qarxay wax kala wajiro waxa ka cabsiye ma yiraahdo okay duufaan baa dhacaya dabaylo jeejeeray alaabo wala macnay okay dayaxa madoobaad laga dhaxay waa wax madoobaad dhulka kala dhex marayo waa iska dhabaanaysan cilmigi baa gartay okay ilmo yar baa dhintay waxa dhintay saliiladii iyo khalaayadkii iyo unugyadii baa istaagay waa la gartay ma aha wax khatar ama aha wixii laga cabsoonay cilmigi baa dhameeyay إذا المرحلة دي ممكن أنجر نمحول ومرحلة العلم والعقل أو just كنت يعني أنا كنا هنكو هنا أو just كنت إنه بين عليه هنكو هنا إنه النبي آدم مركو أبو رمبا ولا أبو رمبا محي علمه مو قاونين نبي آدم لكن مركو الدنيا قلبها هي قاوناته كل متى جربها markaabay waa ciqaab bayd qaawanantu markii dambe dharka waa la siiyay laakiin asalkii waa soo aayada quraanka ma ahayn suuratu al-araf ku jirtay markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka warramay ay falamma tafiqa markay guda galeen inay cunaan ya uuriya maxaa la tusay awradoodii baa la tusay yalla ilaahay subhanahu wa ta'ala markaabuu ilaahay warkaas gartay inay khaldameen yani si u gartaan waa bilaadkii uuriya ilaahay abuuray la tajribo ma leh experience bijirasha imika experience kala siraya marka taasi waa khaladka oo jaskood u galay ibn khaldun ba rahimahullah kitaabkiisa muqaddimada yusufi xan ugu maxnay marka uu ka soo xaday wuxuu ku daray alaabtoodii yareeyay ilaa kaniisad bay ka baxsanayeen kaniisad baa dibteed annaka la kaniisada fi islaamku kaniisad baa jirta kaniisad madaxa naga hashta ma jirta ma jirto alxamdulillah ahraar baan annaka alxamdulillah annaki ilaahi wada nooma dhaxayo wadaadkii war allah ba labadu ilaahi wada tagaan subhanahu wa ta'ala نبى سوحو شقيستو إلهي كسوقاتها جل وعلا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى معناها سنو كجلها مركا بداية الدعوة والنبي نمو بداية كما كلا أبو ربا النبي نمو إله الرعية ما أنت نوى النبي نمو أوكي ما أنت من لقم مارمي كرا النبي نمو دي هل البشر يستطيعون أن يعيشوا بلا دين بني آدم كما أصور تقالي كرتا إن النورادان بلا دين وسؤال مهم هو يعني وحان كي جوابنا ها يا ما يبا سكولك إياك الله ورقا مقارن ما يوانا دا تلادي واحد مركا بحلا باريو خلطان تاهي هدا ها تلادي وخلطان تاهي بلانها أنكو علمي موضوعي راعي نحلين ها ولا نوراكنا بلا دين لكن نولشي لنوراكنا قصيش واتاويا ونوراكنا بلا دين ما تو عكش هنا ودنك ugu raaxo badan waa Denmark bilaadin bay nool yihiin qurux badan yihiin marka dusha laga eego laakiin marka dhadhaxdid diin la'aanti maxay keenaysaa waa nolol aan macno lahayn 9 sano noolaani 6 sano noolaani waa raaxaysani wuxuu yiri Abdullah Masiri filosofka Masriga wuxuu yiri ma kitaab ku qoray dhado ma bacda al-hadasa modernity dibadii maxaa dhacay markii adduunka ilbaxay kadib maxaa dhacay waxaa dhacay insaan al-aala insaan bira bila dareena imiku qosli imiku ooyi bal qof ka warba adduunka maarad qof bini aadan maarad oo imiku ooyi oo imiku qoslaya xadaarada galbeedka keentay saa u keentay waxa laga yiri dareenkaaga ku cabir kolba meesha dantaadu ku jirto waxa la dhahdaa الفلسفه المنفعيه فلسفه واحده براغماتيكا منفعيه اوكي نبا كو سو غلي ابي هويدي با دنتا اسلانت ka dhimatay wuxuu koornaa waxay ku dhacay geeri marka xumahay adka tiri qofkii geeri baa ku dhacday was kala mid dhigaysaa isagii baa iska dhigaysaa geeridii bilmaas u keenaysaa oo ka dhaqan mid kala soo galay xalay waan guursaday farxa Allah tabaaraka waan guursaday thank you ata qosolkii qofkan ma qoslaya mana ooyo mana qoslay waa bir laakiin waxa laga yiri shaqada ku jirta saas tantaada بنيادك وقصل وفرح وقف للسمية واحد حوصلة الإنسان حوصلة بحد هذا وقفك ولا شيء شوز صاب له سمية 17 سنة وقف كذا بني آدم يدي ولا تفتري إنسانية الإنسان بعد مات دجال بالغو قاضي مركز هذا راد وحنا لنا إنسان كون ولا كنا بلا دين لكن سبوا كان لكن إنسان كون مركو دين لي هي مانتا إنسان كون دين الآن معرفة أقونته قالوا واحد أقونته waxay ka imataa laba meelood maanka aqoon u abuuraa waxa la
طبقيه la jarribay la galiyay macmale ya shay barka la dhigana wixii ka dhashay muxuu noqdaa aqoon buu noqdaa labadaba marmaysan ay dhadeen midna waxa ka dhalatay culumta loo yaqaan insaaniga siyaasadda dhaqaalaha amaankii oo la maalayaan dibigii iyo injineernimadii iyo maxaa dhada falagiina muxuu ka dhasheen wixii la xisaabiyay annaga waxa naga tiri diintu waa saddex meelood bay ka imataa labada waa sax laakiin maxaa ku darsanaysiin waxyiga kitaabka quraanka wa il laga soo qaato aqoonta wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an samayn waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata intaas waa intii ay qaaladaas loo qoray labadii shay weeyaan wixii maanku abuuray iyo wixii la baaray laakiin wixii inta ka weyn haya laga keenay u baahan in xal loo helo oo aqliga bilaadkuna waligiina gaari karin haya laga keenay waxyiga la doonayad marka idan waxaan leenahay in mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula waxa ku jira macnaha labaad daqiiqa okay macnaha saddexaad asita idha lam tastahi bahado استحياء يأدي لا حذفي لأنه وحكور يلم حرف نفي وجزم مركا حرف الجزم يقول وحو سمياه وحذفها مركا وحي عينك الله مدك أو كسو أرور مارتي أفكا عربي وحلقات كسو سوير إذا لم تستحي هذا الحشورين فاصنع ما شئت إذا لم تستحي هذا الحشورين برسول هذا الحشورين وعجيب فاصنع ما شئت وحا دوني سماه إذا waxaa taagina labo istrataag ko istrataag hore wax weeyaan ida lam tastahi oo tisdax dinaa ida lam tastahi hadal xishoonin alhaya xishoodku waa maxay xishoodku waa maxay su'aashaas weydiiyaan xishoodu maxaa tahay xishoodku waxay yiraahdeen markay tacbiiriyeen waa xaajizun nafsiyun tab'iyun waa xaajiz wax qofka ilaahay ku abuuray oo laakiin gidaar oo kala ah oo nafsi ah psychological ah طبيعي وقف ku dhasho inta badan waa fitri oo ku dhasha qofku inta badan walaaga aadamuhu dhan baa ku dhasha inta badan laakiin way darajaad bay kala leedahay lagu kala sareeyaa oo lagu dhasha waa xaajis baarnay waa nafsi waa psychological maxaanay waa tabicina waa ku abuurantay qofka bini'aadamka yaxulu baynahu wuxuu dhaxmara xaajiskaasi wuxuu ka celiyaa qofka isaga iyo inuu ku dhaco waxa ay dadka iyo nafta iyo diintuba nacayso ina ku dhacay qofku soo dariiqa jooga inuu wuxuu dooro iska sameeyo maxaa ka celinaya xishoodka ka celinaya marka xishoodka waxa dhadaa waa xaajiska nafsiga ah ee tabciga ah ee kugu dhax abuuran adiga wax la arki kara maaha waa qofka ku abuuran tahay ولذلك ابو النبي عليه الصلاه والسلام الحياء لا ياتي الا بخير حشود هدارت خير ما هنا wax kala ma keenay xishoodku khayr uu keenaa dad baa jira xishood badan oo uu u keenay xishoodka badan in xaqooga ka tanaasulaan xaqiisa ma wadiisanay xishood iska aamus halkan baa lagu kala alaab lagu kala qaadanaya wala la isleeyahay uu daawan wala balbalay ku qartaan kuwa maanta ma qartaan ku qaraan ku maanta arbal waxa inta dadka dhigada oran wadi wala kala qaybsano ma ku iloonaha baa ku xasan namba lagu oran wala ka socday dad baa jira wuxuu ku dhaafay ha dhaafo laakiin madabi uu ku dhacay isagu la yaati illa bi khair khayr uu ku jira ki wanaaga uu ahaanaya fiicnaaye isagu aan xumaanta ka qayb galay buu noqonaya sidoo wanaaga uu uga xishoonayo iyo dambigana uga xishoonaya marka had iyo jeer xishoodku ma la wax la wacay qofka bini'aadamka sabab suuqa sallam laakiin anagu waan ku caayana maxaa leenahay waa ninkan waan gabar oo kale soo dumarka weeyaan dib uu isku dhigo uu aamusan yahay waan ku caayana laakiin rasuulku wuxuu la yaati illa بخير ولذلك بي علماء يراهدان حشودكو waxa weeyaan iimaanka markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray darajaadka iimaanka akhlaaqdii oo dhan ka soo qaatay wuxuu yiri iimaanka waxa ugu sareeya la ilaaha illa allah waxa ugu hooseeya buu yiri imaadatu al-adha an at-tariiq dariiq oo laga qaado wixii dhibaato ah wal hayaa'u min al-iimaan xishoodkuna wuxuu kamid yahay iimaanka هذا ارتقف حشاني واحد وقتها انه يقف maxay qof iimaan in xishood la darat waxa ogaata inuu leeyahay iimaan baa ka burqanaya xishoodkiisa waxa uu keenaya waa iimaan weeye waa xayi ولذلك عثمان بن عفان لكثرة إيمانه
كان أكثر الناس حياء ما دام إيمانكيسو بدنا محوها كدتك وقوه حشود بدن هو والنبي صلى الله عليه وسلم وصل قالين أبو بكر يسوى الأركي جلبيهسي أيو النسكي يا رسول الله أبو بكر أكو ربا سو دافي بولي عمر باكو ربا سو قال دبولي عثمان باي بيدبو رسولك الويلي وحولي سو دافي سو قال ده وإسؤروري النبي صلى الله عليه وسلم وحشود جلبيهسي مقدن وقري markaa baa ku yiri Anas ya Rasuul Abu Bakar baa soo galay Umar waa soo galay laakiin Usmaan markuu soo galay waa isbedeshay wuxuu yiri kayfa la astaxyi min rajulin tastaxyi minhu al-malaa'ika sidee baan uga xishooni nin ay malaa'iktu ay ka xishooto malaa'iktu ilaa ka xishoota walidaalka maxal malaa'iktu ka xishoota qofku markuu kaligii uu iskaga jira xamaamka kaligii uu musqalka joogo iska meedhanayo de qofna kulama joogay waa iska meedhano dharkaas ka saari tujarrid siyaabaka Usmaan ibn Affan dharka iska masaari kareen markuu islaamay kadib isagoo dharka badhsita ayuu meeranayay markii la dhahay maxaa soo yeelaysa wuxuu yiri malaa'iktu ay arkaysa ma ka xishoonay anuu qaawan oo mud ah inay malaa'iktu ilaahay aragto ma karayo idan hada waa min al-hayaa marka macnaha koobaad ee ku jira waa maxay idaa lam tastahi umqiga ay leedahay waa juz'un min al-iimaan qofku markuu xishood beero maxaa ka tahay iimaan male man la hayaa lahu la iimaana له وفائدة قادرنا هذا قف حشود بالهين وصوت هذا جاي إيمان ما له جرت فاصنع ما شئت أنا محاك جبر عليه وعجيب والموضوع واحد هذا فاصنع سو أمر ما نبي يقول لي قال سمع واحد دونيش هو نفس النبي قال بركة ما حكيت هاي ما أمرك النبي ما قادنا واحد دونا يلا ما فاصنع ما شئت بقى معناها كوجها شنو إلهي آيات القرآن يقول اعملوا هذا واحد دونتين سمايا ما شئتم بلال اعملوا ما شئتم واحد دونتين سمايا إنه بما تعملون بصير واحد دونتين سمايا وعلى سبيل التهكم بكرتم هذا ما حكوا جاكاسي سمايا واحد دونتين أنه يتهلا وإلهي واحد دونيال رسول الله آخروي مركز آخرين بتتبع أنه واحد كايالي كتوسي دونا بإلهي كله سبحانه وتعالى حاجة أن الرسول يقول هذا كل حشو لين واحد دوني سمايا واحد كرنا شر هذا قاعدين دونته فاصنع ما شئت كو فاصنع ما شئت وعلى سبيل التهكم بعضهم يسمع ما معنى كلا كجرتا معناها لبادي كجرتا عمو خدادين فاصنع ما شئت وحيرتها ما دام اتاي قف بني ادمنimadi ka tagay de maxaa laga fili xayawaan iska noqo ifal ma shayta sida xayawaan iska soo quda anta tajarrabta bil insaniya binaadin waa ka tagtay maxaa kale laga filaya in xayawaan noqoto laga filaya marka samee xayawaanimadi ifal ma shayta macnahaana uu ku jiraa علماء waxay dhahdaan qofka xishoodka aan lahayn inuu wuxuu doono sameeyo waxa ku garanaysaa qofkaas uu bataa 3 qof 5 qof 10 qof 15 qof iyo noqon waana qof uu kula kulmaya sibaad kula kulmi berito la sikala kula kulmi saadama sikala saakunta sikala ayaanta afraasi kale sharaasi sikala waxa dhahaysa war adigu maaha waniyo adigu maaha taarta ma dhagax baad soo taagtaa دوانيو البحي بيقول ايه البحي بو صعد انا اتطور markaasi qofka noocaas oo kaleetaha waxa la yiraahdaa imika shakhsul munfasim waa qofka kala baxa oo infisaam waa cudurba waa jiro dadka qaar bay ku dhacdaa inuu shalay soo yiri ma ogo maanta wuxuu shalay wax ka dib ku shaqo maxad wada shalay sanaga laha koob inta dambe ku sheego qaado weey oo badan yaadee waa shakhsi kala baxaya waa marad cilmi nafsi imika daweeyo laakiin ka waran dad fara badan oo muslimiin ay maradkaasi maanta jiradaasi ay haysaa marka xadiiskaas waxa inoo wariyay imaam Bukhari rahimahullahu ta'ala intaas ka baxay xadiiskii 2 حديثي كل ثلاث باقلنا عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم حديث كان وحنورنا يا صحابي وين الرادو كنيديس أبي عمرو عن أبي عمرو وحا لغا وريي وقيل وحا لدها او كله أبي أما ليري ولا دها أبي عمرة أبي عمرو أنبا أبي عمرة
سفيان صحابي مجلس سفيان رجل ابن عبد الله رضي الله عنه قال وحوده قلت وحان إلي يا رسول الله رسولك إلهي قل لي وحاد إقول تراهدا في الإسلام إسلامك وحاد إقول تراهدا قولا أراه إقول كلمة إقول هذا الإقول لا أسأل أن ويدين عنه هذا الكاد هل كيس أحدا روح أم بشخص غيرك أن ويدين أديك وحان هين حديث أن ويدين أدو إقول يا رسول الله قال وحود رسولك صلى الله عليه وسلم قل وحاتر هذا آمنت وحان رميي بالله إلهي من رميي ثم كدبنا استقم توصنو وحي آتري كتوصنو رواه حديثك وحاوري مسلم رضي الله رحمه الله اوكي حديث كان اسغنا سيدي عادي نوعيد marka hore waxaan siinaa ciwaan baan siinaa ciwaankiisa koowaad waxa weeyaan waa xadiiska ka soo qaadana wa aamantu billahi summa istaqim هذا هو العنوان الأول آمنت بالله ثم استقم لأنه كجرا حديث كجرا كاس عنوان كاللبات والحديث كسيننا ويسونا أن كلا صباح إنه حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم نفتي سواء أن كلا صباح إنه وحويه عنوان كاللبات والحديث كلا صباح إنه وحويه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكاء النبي انتليجانس النبي يعني مسكحة النبي سيده النبي ولا دقميه سؤالها dadku ay weydiiyaan oo u siinay wax diinta kamida oo qofkaasi marka u baahan yahay sida uu siinay sallallahu alayhi wasallam waa dakaaga maanta ka maqan ducaada iyo culimada qarnigan xadiiska markaas waxaan u imanaa mowduucii labaad oo ahayd inaan wax ka bixino siiradii ninka inoo wariyay xadiiska waxa inoo wariyay abi amr وقيل abi عمرة حديث كساسا كقرن 40 كم نفسيسبا وحدث سفيان ابن عبد الله ابن ربيع ابن الحارث نكن مجيسو صحابي قيمه بدن ويسغونا صحابه مشهورين تانهين وحدث سفيان ابن عبد الله ابن ربيع ابن الحارث وحو كمدها قبيل كلون جرى الثقيف صدر وحده الثقفي ثقيف ولا بدي قبيله ضايف دقريد مقالة ضايف العظم مارتي النبي صلى الله عليه وسلم دقالكي ولاية بعد فتح مكة وكو قاضي رير كاس رير لبدا رير دقنا رير كمدا ايا لورن جري ثقيف مركا وا ثقفي waxaa kaloo la raaciyaa marka ninka laga waramayo taariikhdiisa الطائفي oo ka dhigan ضايف buu dhashay yani marka wulida bi madinati الطائف buu ninkaasi ku dhashay waa saxaabi jaliila waxa uu Umar u dhiibay dhowr goor uu ku soo ceshay inuu madax ka noqdo magaalada Daif Umar Khadaab uu dhiibay radiyallahu anhu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intii uu nabigu jihad galay iyo Abu Bakar iyo Umar ba uu ka qayb galay inta ugu badan ninkaas wuxuu wariyay baa la dhaday xadiisaan la shan xadiis ba xadiisantu wariyay shan ka badan waxa kamid ah xadiiskan aan maanta aan haysano iyo dhowr xadiis oo kaleeto oo ku qoran xataa kutubta saxiixa ku wada inta badan markaas intaas aan ka baxaynaa taariikhdii saxaabiga qiimiga badan leh qul aamantu billahi thumma istaqim wa xadiis qiimi badan xadiis kani waxay culimadu yiraahdeen waa xadiista jawaami'u kalim hadal qada rasuulka lagu soo ururiyay iyo kamid yihiin waa xadiisanta diinta oo dhan bay ku jirto al-islaam kulluhu fi hada al-hadith islaamku sidoo u dhan yahay xadiiska badka helaysa sidoo u dhan yahay sallallahu alayhi wasallam oo nabigu soo ururiyay marka waxaan soo taageynaa isagana afar arimood arinta koowaad maxay qultu waxaan ku yiri ya rasuul allah qul li fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka wa fi riwayatin ahadan ba'daka riwaayad kale wuxuu ka yiri adiga dabada adaan su'aasha ku weydiin laakiin gadaal qof kale weydiin maayo أحد كل سؤال أن ويدين أدو أون إيردا هذه غير كأن ويدين إيردا لبضة وكسر تروادس سؤال علماء وحيد هذين محان كفى إذا سننا إن ساء النبي صحابي سؤالوا ده محان كفى إذا سننا أتيكو بذا صدق شيء كفى سننا كو لمبر 1 محان كفى سننا أهمية ده أي أولى هذا هي دين تو صحابة ده مو أورن
قل لي يا رسول الله قولا لا أسأل عنه مور قولا يقول في الإسلام في الدين إسلامك يكرر بس ما هو دين مارته وحيالات أي مكان كان سوي ديننا ما هو دين لكن دين إسلام بس يجواب marka maxaan dhahnay kow maxaa ku jira ahmiyada ay u leedahay diintu saxaabada nabiga ridwaanullaahi calayhim baa ku jira xadiiska laba waxaa ku jira ninkani wuxuu doonayaa waxa weeye wuxuu ku najaxi lahaa adduunyo aakhiraba adduunyo aakhiro wuxuu ku najaxi lahaa buu raadcaynayaa wuxuu raba inuu gaaro wax weeyaan qul li qawlan marka uu leeyahay la asal waxdan ghayraka waa qowl aniga ifaa'iideeyay adduunyo aakhiro iyaan ku weydiinaya marka faa'iidadii buu doonayaa arinta saddexaad waa maxay waxay dhaadeen intaan u iman dakaaga nabiga geesinimada nabiga maskaxda balaadhan nabiga waxaa ninkan saxaabiga ku jira maskax aad u balaadhan wuxuu yiri wa rasuulka sallallahu alayhi wasallam bacdu al-ashurah waxay leeyihiin xadiiska wuxuu weydiiyay qabla wafaati rasuul intuu nabigu dhiman ka hor yani nabigu waa ka socda dardaaran ka doonay nabiga waa dardaaran marka dardaaranka uu nabiga weydiin lahaa waxa ku oran lahaa awsini ya rasuulallah waa kan daaba ku gaadhay nabiga saxaabadu nin weyn ma ahayn nabigu markuu dhimanay 60 iyo wuxuu ku dhintay iyo 3 sano marka ma hada yani weyn ma ahayn oo dadka oranayaan waa nabigu waa sii socda laakiin waxay ku garteen sida uu u tukanay rasuulku sallallahu alayhi wasallam nabigu markii uu adeeyta geeridu ku soo dhawaatay wuxuu ku tukanay fadhi inta badan soo xanuunsan xataa waxay tiri Aisha nabigu wuxuu ku tukanay fadhi xiina xatamahu naas markay dadku dumiyeen siday su'aal weydiinayeen ay jihaad u geynayeen ay barnaamijkii binaadam ka shaqeynayeen iyo cibaado u daalay marka maadaama uu daalay xiina xatamahu xadiis saxiixa xiina xatamahu xatam markii la dumiyay markuu dumay ma rasuulku markii la dumiyay binaadamku dumiyeen binaadamkii baa dhabay markay dumiyeen muxuu ku tukanay inagu tiri fadhiga salaada sunnah yani fadhigu ku tukanay sallallahu maadaama uu fadhigu ku tukanay maxay saxaabada dareemayaan inuu hadeeto soo dibcay rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyo arkayaan marka markii uu xataa sakaraaday oo aad u xanuustay adeerkii Abbas ibn Abd al-Muttalib markuu yimiday oo eegay wuxuu yiri oo ku tagayaa nabigu in jiradan cudurkan uu ku tagayaa uu ku tagayaa yani uu soconayaa lan yaqum ma kacayo kama kacayatan markaas lagu yiri maxaad u garatay wuxuu yiri waxaan aasay in badan oo reer Abd al-Muttalib adrakadi weeye waxaan aasay rag badan oo reer Abd al-Muttalib halka saa markay wax u jiradaan way soconayeen buri khibradda maartay odaygii muxuu baadiyay roob baadiyay baa loo cirku eego baybu badaayo maxaad u gartay waan hoos joogay baan ku gartay inuu daayan kale ilaahay waa hoos joognay buri khibra yani khibraddu waxay noo sheegaysaa buri inuu xirjirin roob ma jiro marka al-khibra waxay u sheegtay inuu nabi maxamed dhiman doono sallallahu ilaahi ma waxyi maaha laakiin wuxuu ku ogaaday khibradii buu ku ogaaday wuxuu waxaan aasay in badan oo ilma Abd al-Muttalib dhalay amba ahfaadii Abd al-Muttalib ku ogahay marka waxa halka aan kala soo baxaynaa ninka saxaabiga waxa uu gartay inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadeeyo sii socdo wuxuu markaa weydiisanayaa su'aal muhiim ah tadriisa waa dakaad marka qof weyn oo khibrad leh ama sheekh aw tagtid aslada dib doo markaysid ha weydiinde maxay weysada ku jabtaa weydiin ha ula tagin maxaa qaradaa ma islaanta biraas waxa ula tagin saqajaanka Yurub ka jira iyo Canada iyo waxa weydiisaa wax yaani dhaxal gal oo asleedahay waa hayn doonta muddo badan hadda si noolatid marka ninkan muxuu yiri qul li qawlan لا أسأل أحدا غيرك وفي رواية محمد بعدك أسلف أنا صباها سدح شوية أوكي حديث كبركة جوابت النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم محاكو جرا ومعناها لبعض أفرت تستجن تيكو صبحني وصدحها معناها لبعض يكو جرا محي حديث كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل بكذا لا قل وراه يا ده حتى هذا آمنت بالله أوكي أولا قفك الوكالي يقول ده هو بيجيبها مسلم بها وما حق ده قال بها قال كما كنا نويم أدوى إسلامي على سوق المسجد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد رسول الله الله أكبر هي خلاص فريسة ورغم ضاضي يعني كما تقول تقول أشهد أن لا ده وايد هاي كانت تقول ده
معنى دقيقة كجرا إخواني في الله قول ده معنى وين ما كجرا معناها كجرا محويها وحا كجرا المعنى الأول الدقيق وحويان قفك بني آدمك إسلام مديسو ما هن مر قرأ انت يقشو فريستها وهديتو أن دقاقي إسلام مدو ما هو للقه سبارت مركي دعاء خروج ونقص بحاني دعوة النوشة ضد بأورجل بري بالرياضة حين وربما كان إسلامي يكوني ولا نقول يا أبو بقول إسلامي مش كبحنا رجل وحنا محليين ما يقال إسلام هنا أوه قرآن بقرة يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا وروحي يكون الله رميو رمايا وحالك علمنا كلا صبحين الإيمان يجدد لأنه يبلع إيمانك وال عزبونيسيا محايد عي باليوبا قبوبا ويسعونا إيمانك تأكل بقرعة إنه تأكل كل عام حتى أركيسها قف بعد أركيسها مرك إيمانك عركها ومريو سنين خميس أيام عبيد ووضع أيام كان أركيسها والله إدامي والله واساس عليه والقف يسيقول ما عاد إيمانك ما فرستي قفوة بعد صحوة قفوة بعد صحوة قفوة بعد ما حدا صحوة بنادم كذب بدي صحتي مرك إيمانك وحو قال درجة بعلو دادين إيمانك وحو قال درجة sidoo u socdo meel ka soo qabataad way wuxuu gaaraa darajo sidoo u socdo oo libti oo sida xidigaha lagu daawan war qofka iimaan badana dadku ay fajacayaan qor akhris badana salaad badana iimaan badana limaada وقفك ونحال كان قينيا يا وإيمانك ولذلك النبي كما أورن صلى الله عليه وسلم إيمانك حج كما أورن النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الله الرمي كما قل هاي كانت هذا جددوا إيمانكم النبي يقول إيمانك هنا أسبونيسية